magaalada muqdisho waxaa la sheegayaa 500 oo qof muddo 13 maalmood gudahood inay dhinteen lama hubo ilaa iyo hadda dadkan dhammaantood inuu cudurka corona dilay balse gobolka banaadir maamulkiisa waxay sheegeen in tirada korodhay oo aan horay muqdisho uga dhicin caabuquna uu sii ziyaadayo markaas la xiriirin karo in dadkan qaarkood ay xanuunkaas u dhinteen maamulka gobolka banaadir waxay intaas ku dareen in tiradan ay ka heleen dadka gacanta ku haya xabaalaha dadka lagu aaso isla markaana horay aysan u dhicin tira intaas la eg inay xanuun caadi ah u dhintaan muqdisho caabuqan ama cudurkan corona aad buu ugu faafaya waxa sidoo kale jira taxadar la'aan ay dadku muujinayaan iyo waliba adeega caafimaadka oo liita gaar ahaan isbitaalada oo mishiinka dadka neefsashada ka caawiya inuu aad ugu yar yahay isbitaalada qaarkood iyo Soomaalida oo inta badan aan u feejignaanin xanuunkan adduunka oo dhan gabagabeeyay wararka cudurkaasi la xiriira boggan kala soco wixii ku soo kordha